xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaasha golaha wakiilada ee dawlad goboleedyada ee federaalka taliyaasha ciidamada qalabka sida safiirada iyo diblomaasiyiinta ee xafladan ka soo qayb galay mas'uuliyiinta iyo dadweynaha degmooyinka gobolka Banaadir saxafiyiinta iyo kooxda heegin iyo baanbeyda ciidamka booliiska dhammaan marti sharafta ee xafladan ka soo qayb gashay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane madaxweyne intaanan hadal jeedinteyda u sii gudagelin waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinkii ka soo gaaray shaqooyinkii kooxda argagixisada ay u geysteen shacabka Soomaaliyeed oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed sidaasi oo kale waxaa inaga geeriyooday walaalo qaali ah oo ay ka mid yihiin marxuum xildhibaan hore Cismaan Cilmi Boqorre oo gacan ka xaq daran dishay 23kii bishii February 2019 wasiirkii hore ee arrimaha dastuurka marxuum Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo asagana geeriyooday 8 Maarso 2019 iyo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ex xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdallah oo gacan ka xaq daran dishay 23kii bisha March 2019 waxaan dhammaan alla uga baryaynaa inuu jannatul firdaws ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii ay ka tageenna samir iyo iimaan alla ka siiyo annaguna gadaashood alla nama fidneeyo aamiin mudane madaxweyne kalfadhigii afraad ee aan soo dhaafnay wuxuu ahaa kalfadhi aad u shaqo badan